ma mid inaga mid ah ayaan ka helin barnaamijyada George Qardaaxi khaasatan barnaamijkiisa Musaamax Kariim waxa uu ku guuleystay milyuumaad qof qalbiyadooda iyo maskaxdooda inuu ku reebo raad maanta waxaynu ka hadlaynaa qisada nolosha ee George Qardaaxi George Qardaaxi wuxuu dhashay 1 May 1950 isagoo ku dhashay tuulo la yiraahdo Faydaruum oo hoos tagta degmada Kisirwaan ee buuraleyda wadankaasi Lubnaan aabihii waxa uu ahaa nin aad looga jeclaa tuuladiisa halka hooyadii ahayd guri joog sida ay u badan yihiin hooyooyin badani reerkoodu aad ayay u danayn jireen waxbarashada sidaa darteed marba tuulo ayay ugu guuri jireen si wiilkoodu waxbarashada u dhameeyo waxa uu ka baxay George Qardaaxi kulliyadda xuquuqda iyo culuumta siyaasadda ee jaamacadda Lubnaan markii dambena waxa uu aaday Faransiiska isaga iyo reerkooda markii dagaalkii sokeeye ka qarxay wadankaasi Lubnaan hibadiisa bandhigid iyo jacaylka uu qabo saxaafadda waxa uu saxaafadda ka bartay maxadka Louvre ee Paris soo bixiddiisii waxay bilaabatay markii uu ku soo noqday Beirut isaga oo ka shaqayn jiray jaraa'id la oran jiray Lisaanul Xaal 3 sano ayuu haddana waxa uu ka sii shaqaynayay TV-ga Lubnaan isagoo soo daynayay wararka iyo barnaamijyada 1970kii wuxuu ku noqday Paris waxaana uu shaqada barnaamij diyaariye ka noqday idaacadda Monte Carlo waxaana uu noqday markii dambe tafatiraha guud ee idaacadda 13 sano oo uu soo gudbinayay wararka siyaasadda wuxuu 2 sano tafatire ka ahaa idaacad la oran jiray Idaacatu Sharqi waxa uu maamule ka ahaa ama tafatiraha guud ee u fadhiya magaalada London TV-ga MBC ilaa ugu dambeyntii noqday maamulaha idaacadda MBC FM oo uu ka badbaadiyay fashil ku soo socday isbeddelkiisii ugu weynaa waxa uu ahaa markii loo soo bandhigay barnaamijkii Mansayar Baxmaliyon 1999kii barnaamijkan oo uu ka soo bandhigay channelada MBC waxaana uu ku guuleystay qalbiyada dadka si fudud inuu u dago ma ahayn barnaamijka kaliya ee guuleystay ee uu soo daayay George Qardaaxi waxa kamid ahaa barnaamijyadii aadka loogu bartay barnaamijkii la oran jiray Iftax Qalbaka ama Qalbigaaga Fur ee 2004 waa barnaamij sheeko dadkuna aad ayay uga heleen barnaamijkan waxa uu soo gudbiyay barnaamijkii Musaamax Kariim waxa kale uu soo gudbiyay barnaamijkii Ahlul Qimma oo uu ku soo casuumay dad ka caan ah Carabaha waxa soo baxay warar sheegaya islaamida George Qardaaxi laakiin George Qardaaxi ayaa yiri anigu marnaba iskuma dayin inaan islaamo wuxuu yiri masiixiyadda waan ku dhashay waan kuna dhimanayaa waxa uu yiri diinta islaamka waan ixtiraamaa wuxuuna xifdiyay aayado badan lamana qarin karo jacaylka uu qabo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku salli rasuulka George Qardaaxi waa nin romantic ah qiso jacayl oo aad u weyn ka bacdi waxay isguursadeen Eeda Qardaaxi waxayna u dhashay 3 caruur ah waa Gabriel Bamila iyo Patricia mar la wareysanayana waxa uu sheegay inuu jecel yahay mar walba inuu la fadhiisto waqtiga intiisa ugu badanna la qaato family-giisa waan rajaynayaa in aad ka heshay qisada George Qardaaxi fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo fiidiyogana like saar una share garee asxaabtaada iyo family-gaaga waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته